kulanti wacan wanaagsan jamco wacan daawada meel walba oo joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filimada iyo sidoo kale akhbaaraadka xiisaha badan maanta laga qoraalmaha koonfurta iyo sidoo kale Bollywoodka warbixintan waxaan ku bilaabi doonaa lacagaha uu maalintiis koowaad oo ku furmay ama oo la imaada filimka Fighter ee tiyaatarada maalinta shalay ah koray filimka Fighter ayaa lacag ugu fan wuxuu la imaada maalintiis koowaad kana soo xareeyay qaybaha tiyaatarada lacagiisna waxay gaarayaan 23 karoor asaate filimkan wuxuu ka gaabiyay waxyaabaha laga filinay maadaama filimkan oo qayb ka ah Hrithik Roshan iyo Deepika Padukone directorna oo ka ah Siddharth Anand Deepika Padukone Siddharth Anand filimka ugu dambeeyay loo daawado wuxuu ahaa filimka Pathaan kaasoo loo arkay inuu filimkan uu ka talaabi karo ilaa 30 karoor ugu yaraan asaate filimka arintaas ayuu ka gaabiyay soo kale uu ka gaabiyay rajada laga qabay dhinaca kalena fiirno filimkan sida uu ku bilaabay subaxdiisa hore ayaa filimkan waxay ka dhigtay inuu 20 karoor oo ka talaabo wixii maqribada ka dambeeyay filimka xogaha hoos dhac yar sameeyay taasoo keentay in 7 karoor ugu darsanto filimkan lacagaha uu soo xareeyay goobaha ku ficnaa waa qaybaha koonfurta sida Mumbai NCR Kolkata iyo goobo kale kuwaas halkaas oo filimka ku wacnaa filimkan soo kale qaybaha Gujarat wuxuu ahaa mid oo kaga wacnaa qaybaha kale ee filimada danki marka loo fiiriyo qaybaha koonfurta sixta filimkan ayaa maanta wuxuu haystaa fursad uu kaga faa'iideysan karo maalinta Republican Day oo dawladda Hindiya ay u dabaaldegayso shacabkan maanta fasaxay waaweyn ay qabaan waxna suurtagal ah in intooda badan ku soo xumaan qaybaha tiyaatarada filimkan wuxuu ku saabsan yahay arrimaha wadaniga waxaan loo suurtagal ah in filimkan ay u heliyaan sidoo kale tiyaatarada ay ku soo xumaan la arki doono maanta oo jimcaha lacagaha uu ka keeno qaybaha tiyaatarada Britol haduu ay buuyn karaan noqdana oo idin soo gudbin doonaa أنا كل دابا حنسلك دونا جلاجا في جلسة تبتي أي واحد لوضع إن لو صدره فيلم كراميانا دايركتور كان كيش تباري مشروع عيسى راميانا أي واحد يمده جامية كي رامبير كبور شيء بلا في إياش قاس أو سوق الفيلم كانوا ياه مدح يسيس كروقة تاني مركز تحدث حال فيلم لسكو كان مركان السوق الواحد حقيقيين التيشر لارا داتا إن لو صدره قلنا كاستنج كأي فيلم كاسي إذا لو دي بدور كذا كي markaan ayaa warar waxay ka soo baxayeen in Ramayana lagu soo diri doono xidiga Vijay Tabati ee doorkiisa uu yahay Fabishana qolowdo filimka ayaa warbaahinta waxay xaqiijiyeen in ay Nitish Tiwari iyo soo kale Vijay Tabati ay ka wada munaaqashoodeen doorkooda Fabishana kaas oo soo kale ku jiri doono Ravana walaalkiisa ee filimka Ramayana taas oo soo kale Nitish Tiwari la sheegay in dhawaan uu kulan la qaatay Vijay Tabati kaas oo la wadaagay qoraalka filimka soo kalena waxa la sheegay in ay ka wada munaaqasho doonaan maalmaha soo aadan in uu aqbali doono haduu ku qanco Vijay in uu sameeyo doorka filimkaasi Ramayana waxa loo jadwalay in duubis lagu bilaabo Maarso 24 Ranbir Kapoor Shebalafi ayaa hogaamiyaasha filimkaasi ka ayagoo soo kala duubistooda ee soo gabagabeyn doona May halka Yashna oo ku soo biiri doono duubista filimka June iyo July inta u dhaxaysa kaas oo soo kale uu ku soo dhamaystiri doono waqtigiisa 15 maalin waxaana soo kale qaybta koowaadna ee tahay mid lagu soo gabagabeyn doono July dhamaadkeeda taas oo filimkan uu yahay filim sanadan dabaaqadeeda wixii ka dambeeyay la daawan doono si kastaba Ranbir Kapoor ayaa duubis wuxuu ku bilaabi doonaa qaybaha Mumbai ee Maarso labadeeda iyadoo soo kale jadwalka la qorsheeyay in la soo gabagabeeyo April ilaa May 2024 filimkan waa filim xiiso leh ee arrimaha dramaha ay ku saabsan أنا كل داون حنسليك دونا حد كارتك أرينا وحول ما دارتي كواد فيلم كيسا جندو جامبيون كارتك أرينا وحول وارك دونا دور عن كل هره لو واركن فيلم كيسا حسال جندو جامبيونس كاسو دايركتور كيا كبير قان وحنا كريجا سمركو دور سعي ولا شقيان أكتر كان دايركتور كان وحنا تعرف تسمد داوداش حساء كده حبورته waxaana soo kale markaan jirtay in Kartik Aryan oo filimkiisu ku saabsan yahay arrimaha sportska iyo drama ayaa xidigan iyadoo ku aadan maanta 25 guuradii ka soo wareegatay xilliga Republican Day ee dawladda Hindiya oo maalin gaar ah u tahay shacabka Hindiya ayaa wuxuu xidigan u leeyahay aragtida kuwaad ee filimkiisa ay kaartada kaas oo dareeska ciidanka uu wato xidigan Kartik Aryan ayaa wuxuu leeyahay door wadanimo maanta oo Jimcaha oo January 26 kada qaybaha social media ayaa soo dhigay wuxuuna soo raaciyay qoraal ah inaad taqaf guuleystay waxay tahay dhiig oo ku shaqeeyo qof walba Hindiyaana Hindiya hanoo la tahay soo raaciyay asagoo uu mahadceliyay ama uu hambaliyay maalinta Republican Day filimkan ayaa xiiso leh filimkan ayaa sidoo kale waxay mid maalmo ka hor in ay qolada filimka ay sheegeen filimkan uu ahaadno
film xiise leh oo wax walba lagu soo bandhigi doono. Jandu Jambina waxaa laga filanayaa in lagu duubo location kala duwan sida Hindiya iyo meelaha ka baxsanba. Filimkan ayaa soo saaray waxaa ka Sajid Nadwala waxaana loo aastay in la daawado June 14keeda xilliga Ciidul Adha waxaana isku dhici doonaa filimka tirshada Kangana Ranaut ee Emergency taasoo dhawaan si rasmi ah ugu dhawaaqday. ugu dambeynta waxaan isla eegi doonaa xidigada kasoo muuqan doona filimka Premium Jyothi Menon ee Akshay Kumar iyo Tiger Shroff ayaa waxay soo bandhigeen video kuwaas oo calanka Hindiya ay wataan xilli ay ugu dabaaldegayaan xilliga Republican Day-ga. taageerayaasha markan waxay sugu laayihiin in Akshay Kumar iyo Tiger Shroff filmka ay ku mudoobeen ee Premium Jyothi Menon inay ka daawadaan qeybaha silver screenska. inta aysan dhicin arrintaasi ayaa daawadayaasha waxay la wadaageen labadan xidig muuqaalka kooban filimka iyagoo laga dhagaan karay isfahamka labadan ay kusoo bandhigi doonaan qeybaha saashadaha waaweyn inay tahay mid sareysa. iyadoo arrintaas ay jirta ayaa maanta ku beegantahay Republican Day-gana xilliga Hindiya u dabaaldegaysana ayaa labadan waxay soo dhigeen muuqaal kuwaas oo calanka Hindiya ay wataan oo labadooda ay ku ordayaan. muuqaalkaas ayaa Instagram ku soo dhigay Akshay Kumar waxaana kala soo muuqda Tiger Shroff iyagoo soo kale Akshay Kumar dhar madow oo watay calanka Hindiya oo gacanta ku haya goob xeebana ku sugnaayeen iyagoo calanka ay la ordayaan halka dhar cadna uu watay xidiga Tiger Shroff. labadan ay waxay ku sugnaayeen duubista filimkooda ee dalka Jordan. iyadoo arrintaas ay jirta ayaa weli waxaysan ka baaqan inay xusaan maalintaas oo u arkaan maalin weyn ee dowladda Hindiya ay u tahay. sixta filimkan ayaa iidan tiyaatarada ugu kori doona waxaana qayb ka ah filimkaasi atirshada quruxda Hindiya ku guuleysay Manisha Chiller, Alaya Af iyo sidoo kale atirshada kale ee Sonakshi Sinha. filimkan ayaa sidoo kale wuxuu yahay mid isku dhici doona filimka Ajay Devgan ee Meedan kuwaas oo ciida la daawan doono. inta ayaan kusoo koobna daawada warbixinadeena xiisaha leh maanta laga qoraalmaha koonfurta iyo Bollywoodka kuwaas oo saaran waxaan warbixinada ugu dambeeyay oo la wadaagi karteen daawadayaashana ku taxambarta tusmada filmada kuwaas oo la xiriira xanta jalaayasha filmada soo baxay qorshooyinka filmada tiyaatarada saaran ku goosgoosada heesaha laga soo bandhigay iyo waxyaabahaas dhan alla bixiis way lahayn oo la wadaagi karteen daawadayaashana ku taxambarta tusmada filmada. hadda warbixinadan ka sheegno soo kala saxabtiin la wadaaga meel walba joogtaan jimco wanaagsan. hadda warbixinadan ka xiisaha badan ee soo kordhan alaaba shaqadan waxay tahay in aan la wadaagno meel walba joogtaanna waqtiga ha idin wacnaado.